Hadda khadka waxaa si toos ah ugu jira isuduwaha wasaaradda shaqada, arrimaha bulshada iyo qoyska ee gobolka Badhan. Isuduwe, soo dhawow. Bal waxaad marka hore faahfaahin naga siisaa xaaladda guud ee magaalada Badhan. Masha Allah tabarakallah, masha Allah tabarakallah. Xaaladu waxaan ku yiri waa masha Allah, waxa Ilaahay loogu mahadnaqo. Waxaan ku yiraahdaa dalku waa rooban yahay, nabadgelyadu waa masha Allah tabarakallah. Marka xaaladu aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin. Dalka Soomaaliland waxaa maalmaha nagu soo socda ee fooday nagu soo haya laga xusi doonaa maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May. Bal ka waran isuduwe diyaar garowga 18 May ee magaalada Badhan. Masha Allah Ilaahay baa soo dhaweeyay 18 May. waxay la kulantay roob, raxmad, barwaaqo, biyo waxaan ku yeeray waa diyaar baan u nahay inaan 18 May 2024 aan ka dabaaldegno. Masha Allah tabarakallah baan leeyahay Ilaahay ha nagu simo 18 May caafimaad ha nagu simo, roobkuna ha nagu sii wado. Masha Allah raxmad waa diyaar baan u nahay waayo wadankii joog macaan qurux badan roobaan ee dhimay nima isugu timi nimca kusug. Isuduwe marka shacabka magaalada Badhan ma u diyaar garoobeen xuska 18 May inay si weyn u xusaan sanadkan? Masha Allah diyaar weeye waayo wax la yiraahdo marka barwaaqada helo dadku aad bay u dirdiriyaan marka barwaaqada ku jirnaa aad baan ugu dirdiriyaan 18 May. waan gartay isuduwe maadaama tahay isuduwihii magaalada Badhan ee wasaaradda shaqada, arrimaha bulshada iyo qoyska, maxaad ugu baaqaysaa shacabka magaaladaasi? waxaan ugu baaqayaa marlabaad iyo masaddexaad waxaan ugu baaqayaa nolosha dadka oo ah nabadgelyada, dowladnimada dadka oo ah nabadgelyada, caafimaadka dadka oo ah nabadgelyada. inaan nabadgelyo haysan horumar male waxba male. marka nabadgelyaan ugu baaqayaa inay nabadgelyadooda adkaystaan, inay horumarkooda ka fekeraan. intaa baan ugu baaqayaa nin nabadgelyo haystaa intaasoo haystaan, wuxuu haystaa dowlad, wuxuu haystaa caafimaad, wuxuu haystaa horumar. nin nabadgelyada haysta marka nabadgelyaan ugu baaqayaa inay horumar waliba ka noqdaan, nabadgelyadana inay horumar ka noqdaan, nabadgelyo ahaanta dalka ka jirta inay horumar ka noqdaan baan ugu baaqayaa. bal waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda nabadgelyo ee Badhan. Masha Allah nabadgelyada Ilaahay kulli hadiyad buu u siiyay waayo waqti dheer ama aniga iga horeeyay nabadgelyada ku jirnaa. roobkuna hadday xeeb noqoto, hadday baabuur noqoto, hadday banaan noqoto, dalku waa rooban yahay. Masha Allah nabadgelyaduna waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo ay nabadgelyada tahay. isuduwe maadaama ka socoto wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska, maxaad ugu baaqaysaa haweenka reer Soomaaliland? Masha Allah tabarakallah waxaan leeyahay haddii dhimay waxaa inoo ballana dhimay meel kastaynu joogno soo dhaweynteeda. waxa inoo ku xigtaa doorasho wanaagsan, waxa inoo ku xiga maxaan ku iraadayay nabadgelyada inaynu ka shaqayno, waxa inoo ku xigta barwaaqo inaynu ka fikirno, horumar inaan ka fikirno. marka waxaan leeyahay nabadgelyada meel joogaan. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay isuduwe. kaas waxay ahayd isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Badhan, Marwo Shacni Faarax Cani. aad baad u mahadsan tahay waqtiga qaali ee noo soo qabtay.